maxamed ma santa waxyaabaha soo kordhay hadda la soo sheegay waxa ay wararku sheegayaan in goobta qarax uu ka dhacay ay tahay goob markaas maqaaxi ah oo dadku ay shaax iyo sidoo kaleeto waxyaabo kala duwan ugu gadgado oo xarunta inji ka soo horjeeda waxa dhimashada lagu sheegay hal ruux oo markaasi ahaa ruux ismiidaamiyaha ahaa iyo 5 qof oo dhaawac ah 3 caruur ay ku jirto iyo 2 kaleeto oo qof oo haween ah sida la ii sheegay marka 5taas qof ayaa dhaawac ah oo iminka dhaawacooda la geeyay isbitaalka xanaano hospital ee Dhuusamareeb marka goobta ciidamada ayaa soo gaaray amaanka xaqiijinaya inkastoo hadda goobtaasi iyo waliba laamiguba ay xiran yihiin oo ciidamo horle la soo dhoobay iyagoo markaasi amniga xaqiijinaya dibadna baaritaan wada marka xaaladdu guud sidaas ay tahay waxyaabaha soo kordhana dhimashada iyo dhaawacuna intaas ay ku kooban yihiin maxamed waa gartay maxaa kale oo maamulka ilaa hadda iyaga xaggooda war ka soo baxay weli way waanu sugaynaa wixii akhbaaraad ama warar arrimaha la xiriira sugidda amniga iyo sidoo kale qaraxan qaabku ku yimid magaalada iyo cidda ka dambeysay marka waxaan sugnaaba kulley waa saraakiisha ka hadli doona arrimahaasi kulley hadda ciidamada ayaa goobta soo buux dhaafiyay marka waanu eegi doonaa wixii soo kordhana dib ayay dhigay xagee joogaa ra'iisul wasaare Khayr Rasaaq sida wararku la ii sheegay magaalada ayuu ku sugan yahay ra'iisul wasaaruhu kulley xarunta injira waxa ka socday maalmahanba diiwaangelinta ciidamada galmudug oo dawladda ay la wareegtay howlaha kala duwan oo maamulka arrimihiisa ku saabsan ayaa dabcan ka socday magaalada gaar ahaan xarunta inji oo madax kala duwan ayaa seexan jirta marka qaraxu sida la ii sheegay inji waa laga rabay sida ay dadku qaarkood ay sheegayaan laakiin afaafka hore gaar ahaan diibitooyin ama goobo maqaaxiyaal yar yar ah ayuu hortooda ku qarxay ruuxaasi nidaamyaha ah ee naftaaligaha ah marka maxamed sidaas ayay wax u dhacay